dhegaystayaal sanadkii 1920kii bog madow badan ayuu kaga jiraa taariikhda casriga ah ee Soomaalida. Waa sanadkii isaga oo kaashanaya Soomaalidii uu hoday uu maamulkii gumaysiga Ingiriisku ku guuleystay inuu soo afjaro halgankii daraawiisheed ee muddada 20 sano ah laf dhuun gashay ku noqday, halgankii uu saraakiil badanna ku waayay, muddo dheerna ka hor joogsaday si buuxda inuu dhulka Soomaalida u wada qabsado. waa sanadkii iyaga oo warmooga inta dayuuradaha dagaalka loo adeegsaday hawada laga soo duqeeyey laguna xasuuqay iyada oo aan loo kala soocin rag iyo dumar, ciidan iyo burgeesi, waayeel iyo carruurtoona. sida taariikhda qoran ku xusanna waxay taasi dhacday bishii sanadkaas ugu horraysay ee Janaayo, waxayna ahayd halgaad xanuun badan oo lala helay halgankii waddaniga ahaa ee uu ururkaasi hubka u qaaday xilli Afrika iyo Aasiya aanu ninnaba ku riyoonayn in laga xoroobi karo gumaysigii Ingiriiska ee awoodda badan lahaa. mar kalena 1920kii waa sanadkii Allaha u naxariistay uu geeriyooday Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ururka asaasay, muddadii uu jirayna isagu hoggaanka u hayay. taasina waxay dhacday isla sanadkaas bishii u dambaysay ee December, waxayna noqotay guuldarro 40 sano oo kale dib u dhigtay madax bannaanidii ay Soomaalidu ku taamaysay. inkastoo haddaba ay ahaayeen laba dhacdo oo si ba'an u halakeeyey una hakiyey dagaalkii xornimada loo galay ee gobaynta Soomaalida loo abaabulay, haddana dabkii uu wadaadku shiday haba yeela shiiqee marnaba ma baktiin. dabayaaqadii 1920nadii iyo bilowgii soddonnadii qarnigii 20aad weli maansadiisii dhiigga kicinaysay ayaa dareenka iyo dubaaqa ummadda ka sii holcaysay. weli waxaa ummadda ku dhex noolaa boqolaal darwiish oo maansadaas kor ka yiqiin kana ha qabtiri jiray bulshadii Soomaaliyeed ee ay ku dhex noolaayeen, taasoo iyada oo aan wax badanba jabkii daraawiishta laga joogin si degdega u ogaatay gumaysigu inuu baaba'ooda yahay, sidaa darteedna wixii uu wadaadku uga sheegi jiray ay run ahaayeen. dhagaha dadka waxaan weli ka bixin maansadiisii gumaysi nacaybka xambaarsanayd ee shisheeye kalkaalkana uu ku cambaarayn jiray. Soomaaliyeed ee jeelkii uu wadaadku Ingiriiska la dagaalamayay iyagu la jaalka ahaa, isagana la colka ahaa, ayaa yaxyax u dhiman jirtay mar walba oo ay dadku dhab u arkaan sawirka runta ah ee gumaysiga iyo maalinba maalinta ka dambaysa cadaadiskii isa soo taraayey iyo gacantii birta ahayd ee ummadda ku qabtay. waxayse wadaadadaas ugu daraan jirtay markii agahooda lagu mariyo qaybtii ay ku lahaayeen masafadii dheerayd ee sayidku uu Soomaalida isaga dhaadhicinayay, masafadii uu ku lahaa: doodna waxaan u leeyahay culimada dafaarka ah, war aan idinma doocine idinka igu diimaye, dalkaad iibiseen baa dacarta igu kiciyay 5 har oo idiin daran dannigiin ka fiirsada. mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydin qabateen, dadka ay idin raacdeen isna weydin digagubi, dilaalkii la siiyana dunna kama helaysaan, ninkii idin daraabana ajir iyo ducuu heli, dibna deeqa ee bahay debinta saari maysaan. diinnimaan lahayn inay dameer caynsan weeye, war maxaad dufurayahow cadaawaha ugu daranteen, wanka doosha weyn iyo madagadaad u xilateen, qandiga ma iska duubtaan, dawarsigu ma fiicne. awyaalow ma diideen jihaad ma u dareertaan, war ma darana iyo seef degta maad ku qaadaan, darmaan haad la qooqdiyo doolaha maad u fuushaan, wiilka diirka qaadka ah bidixda ma ugu dadabtaan, doobiga xamaalka ah dakarka maad ka goysaan, daacufleyda madida ah degdeg ma u xabaadhaan, idinkaa dalkaba lehe dowlad maad u noqotaan, ilayn doqonin calaf ma leh. dulbaax maxaa ka baylahay. qaybo kale oo masafadaa ka mid ah ayaa maanka iyo maskaxda Soomaalida xilligaas ku soo noqnoqon jiray mar walba oo ay arkaan madow iyo caddaankii ay ahaadaanba xoogagii shisheeye ee dhulka qabsaday sidii foosha xumayd ee ay dadweynaha ula dhaqmi jireen, dil, xarig iyo mooraduug xoolaadba. gacantii kululayd ee maamulada shisheeyaha markii la dareemaba waxay dadweynuhu isu warin jireen tuducyo jiiftada ku jiray oo dumarkii iyo carruurtii Soomaaliyeed ee waagaas uu halgamaagu ugu warramayey kulana dardaarmayey. waa tuducyadii uu ku lahaa: doodna waxaan u leeyahay dumarkii iyo carruurto, dadkii idinka weynaa hadday idin dulleeyeen, dembi kama ayaabine cuntay idinka doorteen, duunyaa la dhaabsaday dugsigaad gelayseen, dameerkuna ma yeeleen halkay tale ku daysteen, dab intay shideen bay dalaq idinku siiyeen, doox intay qodeen bay ciid idinku daadsheen, nin idiin damqanayaa idinkama dambeeyo, haddaydan digtoonaan daad ba idin qaadiye, duleedada kufaartaa dacas idinku layno, naf dalkaaga doonaysa firaash looma daadshee, dabkan aan shidaayaa dawadiinna weeye,
dariiqii rasuulka iyo dowga ha ka bayrinatay jabkii daraawiishta kadib waxaa markiiba soomaalida dhexdeeda ka bilowday halgan nooc kale ah oo afka iyo aftahamadu ay hub u ahaayeen gumaysiga dalka qabsadayna lagu diidanaa waxaa kaana hormuud u ahaa qaar ka mida maansayahanadii la dhegaysan jirayoo markay dabin joogaanba tirin jiray gabay ama sarbeeban ama caadiyaal ah oo dhibaatada gumaysiga ay dadweynaha ku dareensiinayaan intii u dhexaysay 1920 ilaa 1940 qarnigii 20aad ayuu socday halgankaas aan hubka loo qaadan ee suugaanta cuskanaa wuxuu ahaa halgan qabow oo badanaa maamuladii iyo saraakiishii gumaysigu ay ka dhagala'aayeen sidaa darteedna bulshada dhexdeeda si fudud loogu faafiyey maansayahanadii halganka noocaasa calanka u siday waxaa ugu weynaa 2 nin oo la hubo inay xagga garashada iyo indheergarannimada rag badan oo dhiggood ahaa kaga horreeyeen waa faarax nuur iyo ismaaciil mire ismaaciil ha inoo dambeeya dabayaaqadii 1920 qarnigii 20aad ayuu faarax tiriyey lafagurayaasha suugaantu tix ilaa hadda ay la yaaban yihiin sida uu u marin karo gabyaa weligii reer miyi ahaa weligiina ka fogaa goobaha heshiisyada caalamiga ah lagu kala qalo dabadeedna lagu kala saxiixdo wuxuu faarax arkay dhulkii soomaalida oo xoogag aan soomaali ahayn ay ka xaajoonayaan siday u kala qaybsan lahaayeen wuxuu arkay ingiriis talyaani iyo xabashi oo inta arrintaa heshiisya ka gaaray dhulkii soohdima u kala samaysanaya iyadoo mid walbana ay odayaal soomaali ihi hor socdaan wuxuu u soo joogay xoogagaas oo hadalkii ka taagtaagmay oo ku murmaya dhinac waliba dhulka soomaalida ee saamigu ugu dhacay xaddiga uu la ekaanayo intaasiba yaab bay ku rideen waxaase uga darayd markuu arkay waayeelkii dhulka lahaa oo xoogagaas la kala safan sidaasna lacag kaga qaadanaya markaas buu u gartay ujeeddadu inay tahay qabaa'ilka soomaalida in ooda la kala dhex dhigo dabadeedna wuxuu tidhi gabaygan sida weyn caanka u noqday gabaygan uu ummaddii huruuday ku baraarujinayo ee uu ugu sheegayo xoogga shisheeye waxay ku dirarayaani inay dhulkooda un tahay wuxuu yidhi ingiriis amxaar iyo talyaan way akeekemiye arligaa la kala boobayaan inuu itaal roone ansa ila ah aakhiru sabaan idibilkiisii waa duni la kala iibsadoo nala ogaysiinne ansa ila ah aakhiru sabaan idibilkiisii waa duni hablihii loo ogaa aqalkii diideene waa duni ninkaad aamintaa kuwa abees yahaye ansa ila ah aakhiru sabaan idibilkiisii waa duni xaqii la arkayaa la arjumayaaye waa duni akhyaartii lahayd iibku doon tahaye afka iyo adduunka hadla oo aadsan sadarkiiyo ninkay gacanta midig oodan tahay laga ilroonaaye ansa ila ah aakhiru sabaan idibilkiisiiye odayaashan loo yeerayee la anfac siinaayo asxaabihii bayna yidhi gaal ha aaminayne haddaad niman islaamiya tihiin aadan ubadkiisa oydnaan ilaahay ka go'in